maanta waa guul Soomaaliyeed inaanu cadeemo cad helnay dadka Baraawe iyo Barwaanida iyo xagga ka yimaadeen asalkooda aniga oo la isku dayay mar hore in lagu shaabadeeyay nin cunsur iyo qabiilista ahay dadka kala dirayana inankan wuxuu dhahay reer Baraawan ahay 2 sanadood baan ka fikiray sidaan muuqaalkan u soo gudbin lahaa maanta waan ku guuleystay laakiin wuxuu ku bilaabay inuu dhahay reerkaygu hooyaday iyo aabahay Muqdisho ku dhasheen laakiin markii dambe waxay guureen Baraawe xeebtaas ay degnaayeen waxaana u raacaya isaga DNA-giisa inaan ku cadeeyo wixii aan weligii hore soo sheegi jiro dhan inay iswaaqafsan yihiin sidaasna aan anigu ku hayn qabiiliste oo laakiinse wixii aan soo gudbay ee wax dhaba yihiinba DNA-giisa wuxuu ka bilaabay horta inuu 3% kaliya yahay Soomaali waxa guul ahna inuu toos u shaabadeeyay 3% meeshan loo yaqaano Goa oo Portugiiska hadda بريجي الصومالية مركي ويرين رمين طريقة أصلا مرين حاجة أنا كسو كحيان ضد فرق بدن أيو 6% دتك كمية يعني 5% وحوي ويسترن هيمالايز هندو كوش 5% another 5% وحوي الدكان منار أو إنديا اللي لفت جدا 6% وحوي بنغال يعني بنغال لما أنت كوتش تديجيس يسوع ما لما ديسا وايس واقفان وايس لسه ما يهينا 2% وحوي ساوث ويست إنديا يعني اللي كان ديجيس الصومالي لما هو 3% حقه هنديا أما هندي وياهي 6% ديجيسنا 9% waxa ku jira hadda Ethiopian iyo Eritrean oo markay ku leeyihiin hadda cadadku adigu oran baatay see ku dhici karta hadaba inuu 3% kaliya Soomaali noqdo 3% Hindi 9% Eritrean waxa laga helayaa cadeynta inay sidaas ku noqotay Arabian Peninsula 30% inuu Arab yahay oo Oman xitaa kamid tahay waayo Oman Soomaali maamul jirin geeska Afrika Zanzibar iyo dhulkaas markay qabsatay oo dadkaas isku ka keentay oo sida daraaddeedna aad u guursan jireen dadka meesha jooga concubine samaysan jireen Soomaalidu laakiinse aysan ku dhici jirin aysan adooman jirin laakiinse kuwan oo waliba xataa kuwa Etoobiyaanka maadaama kuwan ay yaraayeen aad dhigooga lagu soo diri jiray sida wadanka loo yeesho iyo bantuugi aawe hadaba waa kuwan 6% waliba waxa weey koonfurta bantuuga hatta ma aha Soomaalida jireer weyne sheegatay ku laftigooda lagu abtiriyo maanta bantu iyo Soomaali jireer weyne isku shaqo ma ahanba waa United Nation oo markii dambe markuu dhahay dadkan meel lagu abtiriyo oo lagu bahaysiyo bantuuga laakiinse bantu iyo Soomaali jireer weyne isku dad maaha isku midna maahaba 6% ayaa lagu leeyahay waa Southern Bantu South African iyo Tanzania Uganda iyo Kenya ayaa dhiiga cadcadka galaya DNA-gooda waxa laga helayaa xataa 4% oo Western Bantu kuwa Congo iyo xaggaas ilaa iyo Westiga daga oo iyagu laftigooda markay dhulkan iyo meelaha imaan jireen la soo qaban jiray laakiinse sida daradeed 10% oo Bantu dhiiga cadcadka galayo waxa soo harayna 3% oo Iiraaniyana meesha ka imaanayso Banadiri Bandar cadcadka kuwa hadda iyagu laftigoodu Banadiri ku abtirsada 3% kaliya weeye meeshaas ayay iska qabanaysaa sheekadu waxaana soo haray wali 1% taana waxay ku biyashubanaysaa masaarida markay loo yimaadeen ayuu dhex guursatay cadcadka isku milmeen 1% ba laga helay dhiigooda waxa soo dhan wuxuu ku soo biyashubanayaa inuu ninkan Ilaahay noo soo diray inuu nala wadaagay DNA-giisii xagga Soomaalida marka la baaro DNA-gooda laga helayo North Africa iyo Middle East iyo Soomaaliya badanaaba laakiinse Ethiopia xitaa adagtiin laga helaba ninkan laakiinse 29% inuu noqdo Ethiopian 3% inuu noqdo Soomaali haddana 3% noqdo Hindi waa wax cajiib ah waxaan idin soo gelinayaa xagga linkiga hadda taabatiin anigoo ka hadlaya arrinkan oo si guud gala u soo waramaya oo qof walba ka dhargi karo taariikhda cadcadka sida Soomaali u soo galeen oo markii dambe xitaa laga saaray calaamad oo la yiri ninkan wuxuu wadaa xaasidnimo iyo isku dir oo qabyaaladeysan oo wadaninimo laakiinse wixii oo dhan ninkan laftigiisa ayaa bi xaqiijiyay oo ma sha Allah daawasho wanaagsan xagga ka daawadana